halkan waa xarunta daryeelka agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu xanaaneeyo carruurta ay aabayaashood kaga geeriyoodeen iyagoo gudanaya waajibaadka qaranka iyo qodmeenta bulshadooda. waxayna ka helaan carruurta adeegyo waxbarasho, hooy iyo goobo kale oo ay ku madadaalaan. xarunta waxaa kaloo carruurta agoonta booliska Soomaaliyeed lagu baraa marka laga soo tago cilmiga diiniga iyo midka maadiga ahba farsamada gacanta si ay mustaqbalka u noqdaan carruur dhan kasta ka dhisan oo bulshadooda wax ku soo kordhin kara. mar aan howlo shaqo aan ugu kurgalayna xaaladda dhabta ay ka jirta xarunta, waxay indhahaygu qabanayeen hanaanka waxbarasho ee carruurta iyo agabyada ay gacantooda ku soo saareen, waxaana ka muuqanaysa sida aysan u dareemin inay yihiin aabala-aan. Sareeyo guuta Cali Xirsi Bare Cali Gaab, taliyaha xarunta daryeelka agoonta booliska Soomaaliyeed, ayaa inoo sharaxaya waxyaabaha ay helaan carruurta. halkan waxaa carruurta lagu baraa diinta islaamka, dugsi quraan ayaa ka furan, macalimiin ayaa joogta, rag iyo dumar isugu jirta oo quraan ka dhigta. sidoo kale waxaa jooga culamaa udiin tajwiidka quraanka iyo bara maadooyinka diiniga ayay qaataan. maadooyinka cilmiga caadiga ah ee iskoolada laga dhigtana xarunta waa laga dhigaa. sidoo kale waxaa dhiga maamul waxbarasho ayay leedahay. manhajkeedu waa midka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay. sidoo kale taliyaha ayaa tilmaamay in carruurta ay baraan fanka, suugaanta iyo dhaqanka si ay u noqdaan wax badan ku soo kordhin kara dhaqanka. way jiraan saacado 45 daqiiqo oo la siiyo kubadda cagta, kubadda kolayga, cayaarta meerijaanka la dhaho, cayaarta karateega la dhaho, midda hidaha iyo dhaqanka. waa meel ay mas-uuliyaddeeda nololeed iyo caafimaad ilaaha ballan qaadi kare ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ballan qaadeen. ugu dambeyn, sareeyo guuto Cali Xirsi Bare Cali Gaab, taliyaha xarunta daryeelka agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa u mahad celiyay wasaaradaha warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, waxbarashada iyo caafimaadka oo mar walba la garab taagan heel iyo hooba. wasaaradda caafimaadka waxay siinayso agoonta ayadaa usoo dirta oo daawo ah. wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay siinayso ayadaa usoo dirta oo kitaabo ah. wasaaradda warfaafintu ayadaa kormeerka ka samaysa. wasaaradda waxbarashadu ayadaa kormeerka iyo la socodka iyo shaqadaas ku shaqale. waxaan mar walba u mahad celinaynaa mas-uuliyiinta wasaaraddaas maamusha. Deeqa Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.